hooyo Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Sahra Dayib ayaa waxa ay ka mid tahay tagaasilayda magaalada Wajeer taasi oo nolol maalmeedka reerkeeda ka soo saarata waxa ay ka hesho taksiga waxayna iga warbixisay waxa ku dhaliyay inay ka mid noqoto wadayaasha tagaasida magaalada Wajeer. maama Soomaaliyeed ahay ilmahayga way yaryar yihiin xamaali wax walba aan isku daynay wax hada oo nafta aan ku qanciyo wali ma waxa ku dhaliyay inaad noqoto hooyo taksiilaya وعندنا يدرو فرطة ناقبل بو راح يجي عشان دمر ضان هاي نلعبو نسحبو نلعبو نسكور نسكت بنا صلي كرو نجي صوري الصبح قلبات كي هوس صبحات كلو كل جيت ناقبل بو يجي عشان لكن وهو مركي علم هذا يريرين نرجع ما تقول تاجن وهذه بيلك هذه واحد مال صار إن يجرن علم عدد هو يطه أبو وطهاي ولا لا تكتر سنته إن يجرن وحدنت وحقوقس بس wax walba inaad sameyn karto oo adigana daro walaad tood leesan daro wala ma haysato waa istusaysa inaad shaqaysan karo laakiin mid ugu daran oo kale hada gaari ay naag ku xamaalan karin waxa lagu soo dhiibayaa loor ismid ee qaad lagu leeyahay loor fiyaas ee qaad lagu leeyahay ma qaadi kartid qof dumar ah maxay tahay caqabadaha aad kala kulantay inta aad wado gaariga wallahi Wajeer waa iska badan tahay dadkeedana waa reebaadiya ilmaha noqdeen naag ha noqoto nin ha noqdeen barbaraha lagu istaaga la inaga gaari wado marka way ku yarihiin oo marka mid kale marka stage ka taagan tahay waxa lagu maleynaa shakhsi caadi gaarigiisa wato dadkii ku yaqaan ma ogi dadka qalo dhan ka wareeganayeen caqabada ugu weyn waxa dadka waxay ku dhahay markay gaariga arkaan ay ku joojiyaan waxay ku leeyaan raali ah waxa u maleynaa gaari oo taksi ah marka ka bacda u sheegaysaa aad leedahay ilaa waxaan ahay taksi aan soo gala sidoo kale waxa ay sheegtay in dhalinyarada takaasilayda ay ku dhibaan xilliyada ay taagan tahay boostaajada misnaba ay siinin nafaas ay ku gasho boostaajada iyo sidoo kale in wadooyinka qaar xilliyada ay marayso ay ku dhibaan dhalinyarada iyagoo markaasi u arka in ay suuq xiran ku keentay haweeneydan ku soo biirtay suuqa takaasida mid kugu dhaco mid la dirarto mid ku xurmeeyo stage markaad soo galayso gadaal soo galayso maamada u baneeyo ku dhaho kuwa hor dhigaan markay arkaan gaariga soo socdo kuwa waxa jirta leedka fuulka kugu shidaayeen oo si wadada aad uga baxdo kuwa ciyaarayeen dhanka kale waxa ay iga warbixisay caqabadaha ka hortaagan gabdhaha inay ka mid noqdaan wadayaasha takaasida taasi oo iyadu marar badan la kulantay ayaga waxa gabdhaha yaryarka dhibkeeda leedahay waa in lagu afduubto in lagu farxumeeyo ina meel markii la geeyo lacagta loo diido raganimo lagu sameeyo laba saddex oo qaad cunayso inta soo qaad marka ciidda keenta lagu soo gal ganjeelka kala lacagta soo qaado shirqool aad u aragtid oo lacagta ma gudaha uma diyaar inaan aniga gudaha gudaha uma soo shaqeyn lacagta misin samso in ka taga raqooda in ka geena boolista saas ay ku cabsadaan ay lacagta kugu siiyaan marka naag ma tahay darawal ma noqon karto inkastoo aan ma weyn aan ahay oo hada ilmo carruur aan ahayn laakiin gabar yar waa iska dhiban tahay ugu dambeyntiina haweenka ayaa waxa ay ugu baaqday inay bartaan wadida gawaarida sidoo kalena ay ku shaqeystaan si nolol maalmeedka reerkooda ay u soo dhacsadaan haweenka Wajeer inay ku soo biraan Kenya darawalnimada inay ayaga ku shaqeysan karaan inay ku xamaalan karaan inay lacag ku soo saaran karaan si kastaba ha noqotee haweenka wada gawaarida takaasida ay raacaan dadka ayaa ku yar gobolka Waqooyi Bari taasi oo haatan u muuqdaan kuwa ku soo biiraya wadida gawaarida yaryar oo ay shacabka xaafadaha kala gadisan ugu kala gooshaan Cabdiraxmaan Geela Haajir Cabdiraxmaan Mucaawiye Alfa TV Countiga Wajeer